afar madaxweyne oo qorqor ka horeeyay mid ku holaday ma jirin hatta jeclaystay hatta ay niyadiisa gashay inuu qaban karo xarar dheere maanta xarar dheera la qabtay maskaxdiisa ka gali weeydi xarar dheere magaaladaasi muhiimadda ay al-shabaab u ahayd awoodda ay dul fadhiyeen ayadoo hawd ah al-shabaab maanta al-shabaab xarar dheer laga qabsaday wallahi thumma wallahi waxaan aaminsanahay al-shabaab wax la yiraahdo waa dhamaadeen al-shabaab hadii laga qabsaday maanta xarar dheere oo istiraatiiji ah waa dhamaad bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh qubnahayga waa xilligeeni qubnaha galabta waxaan ku dul istaagayaa magaalada xarar dheere ahayd ee 15 sano al-shabaab haysteen gacanta lagu dhigo dawladda galmudug baa gacanta ku dhigtay iyo madaxweynaheeda oo waqti geliyay axmed cabdikaari qorqor waxaan kala dul istaagi doonaa qubnaha ku dul istaagi doonaa axmed maxamed islaan waa geedanaare oo loo yeeray Djibouti maxay tahay macnaha Djibouti loogu yeeray iyadana waxaan rabaa inaan ku dul istaago oo aan ku baahiyo aan ku hormaro xarar dheere horta xarar dheere taqaana xarar dheere ana aqaana magaalada laga sheekeynaya ma magaalada istiraatiijiya degmo qadiimiya al-shabaab ka xarar dheere ka baxay wallahi oo billahi oo tallahi inay cirib go'een baan garay maanta inay al-shabaab cirib go'een oo taag iyo tabar ka dhamaatay qax waxaan ahayn waxaan ku qoray xarar dheere horta ma taqaana xarar dheere magaalooyinka la mid maaha magaalo hawd ah magaalo aad u weyn magaalo ay dhaqaale ku haystaan magaalo xeeb daaqsin iyo istiraatiijiyad leh magaalo mudug istiraatiiji u ah oo galgaduud istiraatiiji u ah oo hiiraan istiraatiiji u ah oo haddii aan ku royahay muxuu ahaa shabeellada dhexe istiraatiiji u ah magaaladaas ayaa maanta gacanta dawladda galmudug gashay waxaa sabab u ahaa dadaal uu sameeyay axmed cabdikaari iyo qorqor ilaahay xafdiyo reer galmudugow madaxweynaad haysataan kama horeyn galmudug axmed cabdikaari iyo qorqor sida hore idinku sheegay galmudug waxa hore soo xukumay nin la yiraahdo caali cabdikariin xuseen guuleed iyo cabdi qaybdiid iyo xaaf afar madaxweyne oo sacada wariyagu beenanaya afartuba waa sacad qof kale ma soo marin axmed cabdikaari iyo qorqor oo salaadaana meheriyay afartaasi kala ma dhaxlin xataa shaabad kala ma soo wareegin shaabad xataa shaabad ma galmudug madaxtooyada galmudug ciidan galmudug dhaqaaqay leeyahay galmudug xarar dheere ma jiro afarta idin sheegay mid ku fakiray xataa mid hamiyay in xarar dheere xirowdo ma jirin axmed cabdikaari qorqor haddana waa madaxweynaha lagu cayda badan yahay lagu karbaashka badan yahay yaa karbaashaya isla habar gidir baa karbaashaysa dasad inuu yahay Saleeman hore idinku sheeg ama hadda goor baa waxaan qorqorow haddii la ku rooyay habar gidir ay muxuu ahaa Saleeman ku dilayso oo haddii la ku rooyay hawiyaha kale habar gidir ku dilayaan oo damir jadiid nabad nolol ahaan ku dilayso xagee u baxsanaysaa waruntay saddexdii afartii madaxweyne ku horeeyay galmudug waxay ahayd meesha la yiraahdo galinsoor iyo gaalkacyo baraxley inta u dhaxaysay haddii galinsoor la soo dhaafo oo dayana la yimaado waxaa xukumay xibin iyo xeebnimo la yiraahdo oo Saleebaan oo waliba deegaanka habar gidir degto deegaanka ugu nabdoon buu ahaa xibin iyo xeeb xadka kalena waa godin labe xadkaana waa haddii la ku royo baashi xadkaana waxa weeye dayano halkaa iyo markii hobyo la aadane ilaa duniya cerbad hobyo inta Saleebaan ku dego ayay xukuntaa iyo ilaa inta ceelhuur iyo halkaa sacadku galmudug bay ahaayeenoo gashooda mudug intaa ma soo dhaafayn halkaana niman la yiraahdo al-sunna wal jamaaca oo urur diimeeda baa fadhiyo cayna laakiin galmudug markii uu yimid ninka la yiraahdo axmed cabdikaari qorqor wariyaa mi isku diidayna ama farmaajo ka uriya oo nabadii nolol ka uriya ama haddii la ku salaada inuu yahay ka uriyo madaxweyne maanta ka wax qabad badnaa ama galmudug wax la yiraahdo oo jirtaahi ma asaga ka hor baa jiray war ma galmudug madaxtooyada garanaysa war ma galmudug ciidan loo tababarayo ciidan loo hubaynayo arki jidhe saacadii salaadaan cayr bay ahayd war ma galmudug ku haminaysa xarar dheere magaalo waa degmada ugu weyn way
markii xeebaha dhiga maanta gacanta ku dhigtay warago mahad celi waraad ninkii loo jeeday Mursi maxamed Mursi madaxweyne Masar ba waxa laga sheegay mar waxa hadda ku xumayd la taqtulu usuda biladikum bi fata'akalakum adawa kalab adawa war ilbaaxyadiina haddilinina saysaydoo cunin ayda cadawgin xaq dheere magaalo muhiim ah qasaabta kor ka sheekay waa jidda maynaya wiil yaro qoliya hadda nimanka la yiraahdo ali jibre muxuu ali jibrti raxaweyn wiil yaro raxaweyna baa igu dhex uleeyay raxar dheere baa ka sheekay waa maynaya sidoo sheekay meesha hadda ay tahay ceelka weyn ee xaq dheere ee hadii la ku rooyahay kriiga barxadda horta sababta baawtur ku dhaqdo ana magaalada war waxay noo saaxiibada ay u yimid oo saleebana baan imid gaaridan ay sir dhaqo waa ka dagay xabasiga shuruucda magaalada dugsiga waxay tahay qaadka waa garan ka magaalada ku dhex gadaya laakiin lagu wada xuni karo sigaarka magaalada ku dhex gadaya laakiin lagu wada xuni karo cashuurta ayaa ka qaata waxaan isir xabasiga ka shaqeeyo dadin Allah ya Allah hooyaan ka imido halkaas ka imido kama jirin waxaan xabada sigaarka ma shaqo saasa u shitay waa telefoon nicla dhigta ku hayo ayaa halka waxa iga soo orday wiil yaro 12 jir aan ku qiyaasay halka gacanta maanta seedalayda oo sigaar saas ugu taagay way u kixiyay wax nabi ka samaysan xiil ka samaysan sa gacanta oo dhan masaay u roodhay marka qoftu xanaaqo marka waxa muxuu yahay iyo way ka tagaysaa oo ficilka isma xakameyn kadib أنا ما بفاسني ما كم بهالكيسني بالشباب يا وحاسي ساسا أفرش مسا وحا عن كايلو تفكر با أفرحوين يقول الله ما كان أنت على هاي وحبي يقولها كله أفرحوين ساسا أنت قلت الله بصدي با هالكاجر كوسيسه حرانتك قلي شاو قصت ماشي وعليه حسن لي نكي يغان بيغاني وابصو حيو ميدي يسقط مخالك يا شاك عبيه صور دي ورقا يسار حقه والله عشاب واحد شيء نكحه وأرضنا قرية عند جنابة تكيو نصاحبك يا كان سلام حق فتحدون لي بايوتك أبارك كمان عبد الله أردية تاجن أنا سود عوي نكاسين بالك يدلي عسكري بالك يدلي على سقفت نكاس مرة عيبي إذا مرة عيب مرة بعد قرية على صلبح يريد يكبح أمريكا صوّع طبعا أميركو وأمر ريحان وأقردع السلام عليكم وعليكم السلام ninkaas asaa dambiga galayo idinku la joogaayo xad buu la hadlayaayo ninkaas inuu nala ka yimid Umar Maxamuud hadii la ku rooyay meeshaan warka ahayn anagu martino yahay amiirow kala badbaadi ninkaasi ul baa lagu dhuftay de wuu xanaaqay shuruucda waxa ma kala yaqaan waayahay nin xoog la xoreeyay amiirku wadaayeen xogaa u ka meeshkoogi waayahay u sheeg baa la yiri shuruucda hal bar mar dambe isoo xunaa sameyn waaya iska aamusayo maalintii dambe meel qaad laga hortagay qaad inta laga hortagay lagu sugayo بقى تاعن بقى امير قاعد يسوق يا واقعي ما نسمعه جماعه واقعي امير واقعي الشباب واقعي وقال يسني شيغن بين قاعد بسوقيه ايش بالشارع لو soo xiray bumeera inuu ka duubto rabaayo gurina ma helay ay ku qaylaan bilay maanta jamaca ana ko taagan buu yeeray kala ma garanaysaa maya aniga meesha haystaa waaga waa la sheegina hadee xaga ka timid oo Umar Axmed tahayo marka kuma garanayni madama waxaas kala sameyn hadda ka bacdina lambarkayga qoro soo qawaadi aga wax kugu baakaysaano in adeerkan ahayo hoos waxaan ka leeyahay in adeernimada ka qaadigato nimankaas oo ma ku baxsaday in adeernimada wasi deyseen mindi ay ugu fikir lahayd marka soo horta qabiil waxa la yiraahdo shabaab nasab ma anuguna wax adduunka waxa u nacbay qofka hadii alba halka u galo baaga dhinta waxa xasuustaa hadda koor horta de raggu isku mid maaha nin xisbi kasta uu ku jiro waxa jira aan qadiyadiisa nimadiisa ka tagin لكن دقمدا ku badan doonku qabiil la kugu sideeyay nimada kugu sideeyay hadda waxa astaana waxaan la keenay Muqdisho marka waxaan la ku soo daaway isbitaalkan la yiraahdo waa qasada waxaan kaga soo wada al-shabaab iyo qabiilka in rag qabiili ah in ashaab ku jiraan oo ku dul dhiganaya hadii la ku rooyay ku baxsanaysi in kasto hasku halaynina nas boqolkiiba 90 waa doqom hal xabo dhifad hal xabo dhifa waa jirta marka xabada ay soo maray aniga reerkayga ay kaga shaqeynaya waxa dhacday ana waxa la keenay saddex nin baan nahayo waxaan loo keenay qoladan hadii la ku rooyay amisom istaak amisomka oo xalal ku dhaxyaalaan la ku daweeyay qalimaan ku marnay qalimaan ka dhamaysanay ba isbitaal Madiina loo soo raysay loo jiifiyo
meesha haddaa ku jidhid halale cid kugu soo booqan ka dhamale cid kuma soo geli karo qof Soomaaliya ma soo geli karo waa dawlad gooni u dhisan marka anaga aan marka dhulbayaan meesha naga saaran ku neema guri nageeya ama isbitaal kale aan dawlada ku qaadano ku nasano nageeya meel dadka nagu soo booqdaan bay rabnaa waa la soo kaxeeyo waxaana la keenay isbitaal Madiina asaas kaga jirnay maalinta marka galabtii barxadda baan loo dhigaa baa sirraha la jiidiya saaranayo barxadda nala geeyayo aan ku bahalkaysanaa dhalinyarada nagu timaadaayo marka waxa gacanta nagu hayay oo naqaabilsanaa oo cunada haday noqoto waardiye gooniya naga hayay Umar Cabdi marka madaxweyne ka ahaa ra'iisul wasaare ka ahaa meesha dhalinyarada staafkiisa baa aad iyo aad meesha nagu haysada ehelkii goor galaba oo aan casriyeynay oo aan saasirnahay u jiifno oo dhalinyarada noo timid oo casriye yeeshaayeen loo keenay oo aan iska baxaysanayno bahalka waxa naga soo galay oday wey anu waligay ma arag oo loo bacod shiidanay albaabka soo gal soo socday markuu nala taagay noo yimid buu baciyay dhiga salaamu calaykum waa fiirno calaykum asalaam adeer fiicantiino haayo hebel baa la yiraahdaa marka magaciisa caadiga ah magacaan lagu garanayaa jira oo xaraki oo aan ku yahay ninka waa saraakiisha oo inay darashada lacag dul saaran yihiin ay rafiicanahay siiri dawaan soo boqday oo odaga hebel baan ahayo annagu marka ma garanayno magaca caadiga noo sheegtay artiriska waa garanayna laakiin sifigiisa ma hayno raggan dhalinyarada laakiin magaca xarakiga hadduu noo sheegi lahaa waa garan lahayn raggan dhalinyarada la joogay Muqdisho ka howlgalay xafiiska wasaarada baa aad u yaqaana raggiyo sasaga wada arno shib wada aamusay bistoolay wataan kulligood laakiin nina ma aaminsana ninkaas halkaas oo bilaa ciidan yimid oo sharaab kaliya wada waxay aaminsan yihiin isbitaalka dhan baa inuu suwaadka saaran yahay mar hadduu ninkaas joogo soo boqday soo fariisan ku may khayr baa idin rajeenayaabi annaga wili soo fariisan ka leenahay dashaas caadi nooy saama kuna waraaqay baa dhalinyarada iyo wiilal iyo gabdho telefoon la istaaga laa ilaa war ma taqaanaan maya waa caleen baa leeyahay waa reer khalaf caleen magaciisa ma qadin marka caleen aha nin kasta inta hoos dhacday uurkaas ku guda dhacay xafiiska risaala waxa ay saddex amaad hal soo diro wiilasha waxaan geenaynaa marda caleen soo booqday meel kale soo booqday waxaan geenaynaa hadii ala kuroyo guri risaalaan geenaynaa isla daqiiqadiiba saddex ambalaas baan la soo dirayo huruguf waana la kacayo waxaana la geeyay guri risaalaan la geeyay iska joognayo dawownayo de luuka tag meeshiyo muddo ka bacdi dhowr sano ka bacdi baan anoo safara oo hadii ala kuroyay Istanbul safar waa tarasda waxaan ku ahay farayd way diyaar leeyahay goostay oo Hargeysa iyo Muqdisho kaliya xafiis ku leh marka garoonka inaan Hargeysa iyo Hargeysa goosto Hargeysa ma goostay wuxuu ahaa hotel hartigu ku dago oo dadka hartiga kaliya ku daga inta badan de yaani Puntland ka yimaada oo warsangal leeyahay magaciisa ma xasuustee baan ku dagay sidoo soo kacay quraacaan siri beer baa la keenay meesha makhaayad quraacaan tagay anoo quraacay dul fadhiyo telefoon ku hadlaya baa laba nin halkaas kala fadhiyo ayaan saa u shumbulan baa soo kacay koob shaahi gacanta ku haystay bay wateeno hortayda soo fariisteen anigu marka de attention badan ma siin markaan quraac telefoonka dhigay quraac la galay siri baa salaamu calaykum saasa madaxa u qaada misal lawahatal lil basharay waa yaan hal maray maskaxdeedu seesin sameeyay soo dhufat kan kale ma fadhiyana waa reeyadan oo hadda kor baa faroon inta qabta laga sii daayay asna waa amiir weyn ina dufan inuu haa ma inaayihiis ma xasuustay magaciisi adeer salaamu calaykum salaam garanaysaa wiisan ha soo caleen matid ha magaci wax wajigi waagi waxa fiday moogta wuxuu yiri habeenkan adii imid de maxaa ku dhacay hal maraad waa yacna dheeno anigu boqosha idii imid oo baak santina shabaab ah anigu dawladda u shaqeeyay baa yiri ma yaas aamini karay simayni waxa ka khaldan anigu al-shabaab baan ahaado cidda rabaa ka tirsanaado laakiin waxa la isku yahay wiilal waxay wataan saas ay soo booqday suuqan xogtiina ka helay booqash cabitaan baa idin keenay war cabitaanka tamaan labin baa meesha loo caranayo waa sameeysan yahay cabitaan wallahi barti baa loo caranayo cabitaan ma ilaa waa la khalday anigu saas maahay xagga ka dhacday waxa la isku yahay iyo qadiyada kala aaminsan yahay hadii kala saarnaato intaas oo dhan baa shaqaynaysa waxaan leeyahay war caleeno ma ka dhaba war ma ka dhaba walaal kala tagnay ninkiyo waa joogayaa ku magaala safar baa ahaa ku yiriyo magaala waxa uga baahan tahay iyo dawladda waxa uga baahan tahay iyo nawac baa ana ku dhameeyay way soo waxaan airport ka gala wiil yaro isaaqo ajansi u ahaa
diyaaradda asaasi u ah askari maaha oo ka dhacsan tahay isaaqnimadu oo cunzuri ah baa diyaaradda asaasi looga dhigo diyaaradda noocaan raaco baaritaanka waxaa marayo wiilkaan yaa jil fushay wiil fiisadan xamar baa laga soo qaatay dhalashada baasaboorka garowaata ha garowaata maxaa ka shaqaysaa askari Puntlander ah askari Puntlander wuxuu yeeray ninkii airport haystay kabtana ninkan waa askari Puntlander fiisada xamar kale yiin si maxaa naga galay marka soo safar maahan ha diyaaradda ala bahalka ama raaci ama gata maxaa ninkan dam hub ma wato dam ma gelin maalinta noocaas meesha soo galay maalinta noocaas oo baxaya maxaa askarnimaysan naga galay maanaw ma qayb nala soo bedelayba ma diyaaradda ma raacay oo maxaa dhacay ma raacay waa yahay adeeg ku taala awdi aad laga reebay hotelka ku laafto biriyo tigid baan goostay xamara biriyo kala leeydi waa baxaysa tigidkii waa gubtay kiis aan ka bixiyay muxuu ahaa 900 ka bixiyay ee flight waa gubtay oriyaan kugu daalin marka xamar baan rabaa aan tasiga labaad ay ku leedahay inaan lacag ka qaadaan raba meel kale halkaasan macnaha lacagtaydi igama sokayso diyaar xamaraan goosto marka hotelka imid baa la yiri ninkii la oran jiray bas caleen yaa idul fadhiya salaam alaykum maxaa ku ma bixin maanta ma bixin baan ku yaasa ku dhacday maya waxaan wacayna hadda taliya ciidanka wacayna Soomaaliland marka ogaado Soomaaliland iyo al-shabaab inay walaalo yihiin walaalo ukhti iyo akhi inay yihiin maya taliya maya hay wacayna ku yiri ma ku laabanayo ma rabo uma baahni maxaa dhacay aniga Muqdisho tigidkan lacagtiisa Muqdisho ii taala baan ku yiri meel aan diyaaradda kaga qaadayo baa huba adigu waxay ugu qalqaaliyeen dawladda Soomaaliland baa wacayna tigidkaaga waxa anaga dhameeyna joog oo halka bax marka hadii la yiraahdo tigidkan ku bedelayna ajansigaas ku bedelayna oo ku bedelaya waxa laga yaabaa dawladda mar bay timaadaan dawladda ma fadhin kara ma doorin marka kitaab baan ka maray waan xanaaqsanaa adigu waa tagay waa yahay bay dhaheen Muqdisho ka dagay xafiiska waxaan tagay Fareed way tigidkan u baahan lacagtiisan ku yiri maxaa dhacay maxaa uga hadlay diyaaradda wiilka ajansiga idiya ee Hargeysa fadhiya baaga reebay uma kaaga reebay ay isaga weydiiya isaga la wacay ما إنك أنا ديالك كوري هي وكشكن وما حاجة كشكن من دولة أوطة ما وكشكن واحد ينيو دقيسو كوي حاجة فتكر دلين مي حفيز كوين دواي وكياله لعق ما هينا اللي عتوك جوبت ما يجوبت ها حفيز الرجال أنت جاي وعمر حلو يسته هلا قاري عدولا على صوك حست حفيز كان حرام مرجع حفيز كحلا حلي جاي ليه قبي ما نترك حفيز تيت كانوا بانا تيجي كي هوتيلك انت مقدسه جوجيو تيجي العكس كاش بيسي انت هوتيلك جوجيو هرجيسه انت kaga soo baxday wixii dhan masaayifti diyaar waxaan goostay markaas Turkish Airways baan goostay waxa kaga soo wada marka halka kaga soo waday qoladan Somaliland iyo isku milayeen kow talabaad nimankan la yiraahdo al-shabaab xabad waxa ku jiray qabiiliye laakiin ila ka magan galay yaana wata ku sii dheerayn أحمد عبد كاري غرغور تاريخ وما تقرأي تاريخ ده وما تقرأينه وتاريخ ما لحد أساسا كور رئيس قلم كم جعوني أي سنقرين وتاريخ نرجع قرنا يدقنا يلكن وريك السلام على حان تقوم على الكيم يو وريك هدي على كور هي ساو فيلنا يو ورهاو فيلنا هرمرك قلم ذو أفير ورجيني يا شخص أنا تصعطه إن مدحوينا كنيجتها ورجيني سي aad u heshaan adeeg buuxa oo galmudug leedahay iyo dawladnimo rasmi ah si u hesho maanta waa aragtaa sida waddanka u xoreysanayo cali gudlaawe ma haysan abjaadi aan ka dagaalamayaan noo kala jiray xawaalani aan ka dagaalamayaan cali gudlaawe xawar ma fadhiya hadduu asaga aan laaga war isagu maanta wuxuu taagan yahay waxa uu taagan yahay furinta hore xaal dheer ku soo hadlaya xaal dheer waa kaas waxa dheer naga gacan sareysiyay cadawgii argagixisada ahaa qawaarijta waxaan leenahay maantay magaalooyin fara badan ayaa horena gacanta u soo galay maantana magaalooyin istaraatiiji ah ogtiina waaweyn ayaa lagu guuleystay oo runtii laba degmo oo ah degmooyinkii ay muddada dheer dadkana ku dhibaateynayeen ku dhacayeen ku duuleysanayeen degmada qadiimiga ah ee Xaradheere iyo degmada Galcad waxaan leenahay meel kasta oo ay joogaan dadka reer Galmudug walaalayaal guushu waa isdaba joog waxaan leenahay
taaka ka mid ah galmudug uga harmayno qorqoor walaa ku garab galo dal waa haystaa laakiin dadka ma dhalanay ilaahay ha kula garab galo wax qabadkaaga iyo xoreyntaada iyo halka ka sii wad baan ku leeyahay inta ka bacdi waxaan rabaa guda galo barnaamijka labaad oo ahaa Djibouti iyo Ahmed Geelanar maxaa loogu yeeray Ahmed waxa ka soo qayb gashay la yiri gabadhii haybada Ismaaciil Umar Geela ahayd afartankii bay ka baxeen ayada ay Saadiq John iyo ayadu afartankii bay ka baxeen nooyba u baali oo gabadha kaalay la xasre ajandaha loogu yeerayna wax kala ma ahay dhageysta afartan baxan ma aha soo afartan bax iska daaye baxata asagoo ku ganacsan yahay laakiin ajandaha loogu yeeray sheegay Ismaaciil Umar Geele hadii ala ku rooyay filimkii Eredaysiga oo meesha ku qabtay wajigu dhigay umada Soomaaliyeed oo dhan ayaa u fahantay xataa Djiboutiyankii inuu yahay qabiili aan nasabad lahayn caalamkoo dhan buu cambaarayn kala kulmay iyo qofkii labadii qof oo soo irir iyo Ismaaciil Umar Geele iska waraysanay iyo odayga Xasan ahaa oo dhiiqeeyay ayaa dhiiqa u galiyay ilaa Xasan iska qaban kara dhiiqada Ismaaciil Umar Geele waa taas uu waday ilmo yar oo dhaay weeye marka filimkii inuu bedelo oo alisti ninka ila waa daarood hadii la ku rooy afartan bax loogu yeeray la tuso daaroodkuna inay imaan karaan meesha lagu casumi karo ayuu ujeedku ka leeyahay laakiin Ahmed afartan bax iyo Geelanar iyo sawir in lagu galo daaroodkuna ay meesha imaan karaan maandhow kulama doonayn وانا كعليس بانتا انت عليس كاغا الله كتسو عليس كاغا الله كتسو انت كنت كويا بالراجل والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تشاو